magacayga waa Faadimo Axmed Saalax waxaana gudoomiyaha haweenka gobolka Sanaag. Su'aashaan ku weydiinayaa waxay tahay wasiir dawladdu shaqo xoog badan bay haysaa dadkuna way cabanayaan. Marka su'aasha anigu aan hadda aan fikirayaa waxay tahay maadaama aynu nahay dawlad la yiraahdo Puntland isku mid ah dhinac kastaba haday dhalasho tahay iyo hadii ay tahay deegaanba waxana isku darsanay oo inaan cudad kala qabin maxaa diiday dawladdu inay shaqaalaheeda u kala bedesho gobolada oo gobol maaragtay Sanaag oo kale barasaabku inuu bila amal noqdo waxa ka fiican gobol kale in la geeyo la ogaado bal inuu wax qabtay askariga waxa weeye sidoo kale sarkaalku waa inuu gobol kale tagaa markaas uu noqonayaa ama nin fashilmay ama nin maaragtay wax qabtay marka su'aasha ku weydiinay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxa soo haray su'aashii Faadimo ay weydiinayso la xiriiray maxaa mas'uuliyiinta isugu bedeli weydeen run ahaantii arrintaas waa ka tirsanay madaxweynaha iyo waliba aanu si gaar ah uga tashanay gudoomiyaasha gobolada in la isku bedelo taliyaasha qaybaha la isku bedelo maxaa la yiraahdaa mas'uuliyiinta kale la isku bedelo dawladda oo gobolada loo kala bedelo hal caqabada ayaa jira oo rabaa dhamaantiina idin la wadaago waxa weeye systemka mushaaraadka iyo dhaqaalaha loogu talagalay mas'uuliyiintaas ama taliye booliis ha noqdo ama taliye gudoomiye gobol ha noqdo ama mas'uuliyiinta kale ee dawladda uga yimaada waa wax xadidan weeye markuu gurigiisa qofku markuu joogo tusaale taliyaha booliiska ee gurigiisa jooga qaadanaya $120 meelihiisu dukaankiisa uu saaran yahay iyo ciyaalkiisa inuu la noolaado uu kula noolaan karaa laakiin markaad inta baran ka kaxaysid aad geysid Burtinle ama aad geysid Ayl ama aad geysid Caluula waxa imaan kara waa garanaysaa reerkiisina wuxuu rabaa dhaqaale asagina wuxuu rabaa dhaqaale hadda waxa lagu jiraa in pay and grading la sameeyo mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha dawladda oo dhan mushaaraadkooda kor loo qaado hadii la hayn taas markaan gaaro waxaan rabnaa inaan arrinta dawladnimada ka dhabayno oo qofku aan reer loo fiirin oo reerkii meeshu deganaa mas'uul aan looga dhigin laakiin hadii hadda la keeno mid kale baasho isla qabsanaysa hadii la hayno marka inteenu halka ka gaarayno waxa la rabaa in la isku saburo hadii la hayno oo laga wada shaqeeyo inaan hore u socono insha Allah